qaar ka mid ah waxgaradka maamulka Galmudug ayaa si weyn uga soo horjeestay guddiga dib u heshiisiinta maamulka Galmudug ee dhawaan uu ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye. odayaasha magaalada Cadaad ayaa iska diiday dhammaan xubnaha guddiga oo ay sheegeen inaysan aqbali doonin matalina deegaanada maamulka Galmudug. odayaasha ayaa waxa ay sheegeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ballantii uu ka qaaday markuu ku sugnaa magaalada Cadaad oo uga baxay. odayaasha ayaa kulankooda war-saxaafadeed ka soo saaray waxaana warbaahinta u akhriyay mid ka mid ah odayaasha halkaasi ku sugnaa. maanta oo ay taariikhdu tahay 10kii bishii 7aad 2019 gogosha dib u heshiisiinta ay dowladda ka furtay magaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka furtay magaalada Dhuusamareeb waxay beeshu go'aan satay in aanay ka qayb gelin sababtuna waxay tahay madaxda sare ee dowladda ayaa kaga baxday dhammaan ballamihii hore ay u ballan qaaday beesha sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhuna uu xaqiijiyay in ay tahay golihii baarlamaanku inuu yahay magaalada Cadaado ra'iisul wasaaruhuna uu safarkiisii u ballan qaaday go'aan loo midaysan yahay inuu ka soo saari doono 11 qabiil markii uu sarfayga u dhamaysto sidaas awgeed oo go'aanka bedelay labo waxa lagu tuntay lana baabi'iyay dastuurkii qaranka iyo kii Galmudug lagu dhisay kuna ballameen 11 qabiil lana qaatay koox awalba ka soo horjeeday dhismihii Galmudug 2015 dhammaan beelaha Galmudugna kala gaarsiisay dhibaato aan laga heshiin. 3 beeshu waxay cadaynaysaa inaanay diidanayn dib u heshiisiin in loo sameeyo beelaha Galmudug waxay soo jeedinaysaa in ay ka dhacdo meel ammaan ah oo ka madax bannaan gacan kooxeed. 4 beesha reer Xaaji Saleebaan waxay doonaysaa in doorashada Galmudug ka dhacdo xaruntii baarlamaanka ee madaxweynuhu uu asteeyay lana ee magaalada Cadaado. war ka soo baxay waxgaradka ayaa lagu sheegay inaysan ka mid noqon doonin maamulka Galmudug ee uu doonayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu dhawaan ka dhiso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Cabdirasaaq Cali Silfa, TV Caalami Tusma, magaalada Cadaado.